تسمو بنفحته ملائك الرحمن تسمو بنفحته. بسم الله الرحمن الرحيم. ملائك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، ومid ka mida maqaadicdii yaryarayda aan ugu talagalnay wacyigelinta bulshada. ilaahay waxaan baryaynaa annaga iyo idinkaba dhammaanteen iyo cidda uu gaadho sawdkaygu iyo cidda ay dhagaysanaysa inuu intaba ku anfaco. waxaan maanta ka hadlaynaa dayf ama marti la jecel yahay oo karaamo badan oo qofka iimaanka li jecel yahay ilaahayna jecel yahay ayaa albaabada garaacaya. laakiin ma ogid inaad gaadhi doonto. haddaabad kan gaadhana ka dambe ama rabadaan weeye inaad rabadaanka dambe gaadhi doonto ma ogid. aniga iyo adiga mar haddaynaan ogayn goorta ajasheennu ku siman tahay, bishaasina ay tahay bil wanaag badan, shahru raxamaat, shahru lmubaarak, ay tahay shahru siyaam, ay tahay shahru lqiyaam, waa bishii salaatuleylka, waa bishii soonka, waa bishii dembi dhaafka, waa bishii naxariista, waa bishii deeqda, waa bishii sharafta badnayd oo ilaahay addoommadiisa mawaasimteeda marka la gaadho inta uu u qadaro khayrka uu u dembi dhaafi jiray wey. waa shahru ramadaan wey, waa bil barakaysan wey. bishaa intaynaan gaadhin maalmaha yaree ka dhiman maxaa tala iga ah, maxaase tala inoo wada ah? bishaa intaynaan gaadhin waxaan u baahannahay fadligeeda si aynu uga faa'iidaysanno inaan ilaahay u laabanno, inaan ilaahay u tooba keenno, inaan ilaahay u khushuucno. halka aad fadhido ama aad taagan tahay hadalkaasi marka uu ku soo gaadho inaad dareento inay waajib kugu tahay ilaahay inaad u tooba keentood ilaahay u soo laabato. balaan eegna xadiidkan cubaadat ibnu saamit nabi muxamed uu ka wariyey calayhi salaatu wassalaam. wuxuu uhi nabi muxamed, ustuquu idaa xadathtum, haddaad sheekaynaysaan run sheega. wa awfu, fuliya ballamada idaa cahadtum, markaad cahdi gashaan fuliya cahdigaasuu uhi nabigu calayhi salaatu wassalaam. wa addu, iska guda ammaanada idaa tumintum, haddii laydin aamino siday tahay u guda buuhi nabigu calayhi salaatu wassalaam. waxau nebi muxamed leeyahy, ixfiduu furuujakum, cawradiinna ilaaliy. wa kafu aydiyakum, gacmihiinna laabta. waqadu labsaar, indhihiinna isku qabta. waa xadiid imaamu axmed warinayo. waxa weeye nabi muxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa laga wariyey, waana xadiid saxiixa. xadiidkaas nabigu wuxuu inoo tilmaamay albaabada qofka muslimkii ay tahay inuu ka faa'iidaysto ee uu samayn karo khayr fara badan isaga oo aan samaynin acmaal fara badan. waxyaabahaad samaynaysaa way fudud yihiin. haddaad hadlaysa inaad run sheegto, waxaa ka soo horjeeda hadday kuwan yihiin sifaadka dadka iimaanka leh ee mu'miniinta looga baahan yahay ee taa'ibiinta ah ee ilaahay dembi dhaafkiisa rajaynaya. waa taqaanaa kuwa ka soo horjeeda ee munaafiqiinta. calaamatu lmunaafiqi alaaa, idaa xadaa kadab, idaa wacada akhlaf, idaa tumina khaan. saddex halkan ku jirabay saddexdaasi cagsi ku yihiin. yacni haddaad markaad hadlaysa been ku sheekayso, haddaad markii lagu aamino ammaanadii khayaanto oodan dadkii lahaa u gudin ammaanadii siday ahayd aadan uga soo bixin, haddaadan xafidin carabkaaga oo aadan ilaalinin markaad hadlaysa inaad run ku hadlayso oo aad been ku hadasho, ood wixii lagugu aaminay aadan waxba ka soo qaadin oo aadan u gudin sidii uu ahaa, oo ballankaad gashay aadan ka soo bixin, oo aadan gudi karin waajibaadka ku saaran, idan munaafiq baad noqonaysaa siduu nabigu xadiidkaa kale inoogu sheegay calayhi salaatu wassalaam. ayadoo dambe ee xadiidka waxau nebi muxamed leeyahay calayhi salaatu wassalaam, gacmihiinna ilaashada
oo ka ilaaliya dadka inaad ku dhibtaan cawradiina ilaashada oo ka ilaaliya inaad intaad xaraam isticmaashaan naar ku gashaan waxa weeye indhihiina laaba oo ka ilaaliya amaano weeye inaad ku eegtaan waxaan ilaahay xalaalaynin oo gacmihiina aad ku taabataan waxaan ilaahay xalaalaynin waa khuluqul muslim weeye xadiidkan kale marka oo tilmaamaya rajada qofka muslimka ah uu leeyahay iyo dambi dhaafka ilaahay uu ka helaya jalla jalaaluhu waxa uu nabi maxamed leeyahay calayhi salaatu wassalaam wa xadiithu anas wa xadiithu alqudsiya ya ibnu aadam wa xadiithu tarmadi wa xadiith saxiixa ya ibnu aadam ilaahay wuxuu leeyahay ya ibnu aadam innaka ma dacawtanii inta aad baryayso warajawtanii aad aniga dambi dhaaf iga rajaynayso ghafartu laka kii ku dhaafaanahay buuri ilaahay waan ku dhaafaya waban ku dhaafay ala ma kana minka wax kasta oo dambiyaho ka yimaada wala ubali danna kamalihi dambigaagu waxa uu yahay ya ibnu aadam law balaqa dhunubuka anana as-sama haday dhunubtaadu buuxisa dhulka iyo cirka inta u dhaxaysa oo ay samada gaadho dabadeedna cirka intay gaadho aad istighfar la timaado ghafartu lak ya ibnu aadam innaka law ataytani biqurabi al-ardi khadaya haddaad iila timaado dhulka oo buuxa oo gaf ah dabadeedna aad ii timaado aad ii soo noqotood ila kulantood dhimato adoo tawba keenayo laa tushriku biya shayan la ataytuka biqurabiha maghfirah waxaan kula imanayaa dhulka oo buuxa oo dambi dhaafa xadiithul qudsigaas dambigaagu inta uu doonaha gaadha in la dhaafay buu tilmaamaya waxaan u baahannahay akhlaaqdeena inaan wax ka bedelo akhlaaqdaada oo wanaagsanaata waxay ka dhigan tahay inaad ahlu jannaha ka mid tahay akhlaaqdaada xumaataana waxay ka dhigan tahay inaad ahlu naarka ka mid tahay nabi maxamed waxa looga sheekeeyay saxaabiyadaasi waxay haysataa maal badan waxay samaysaa cibaado fara badan waxay sadaqaysataa maalkeeda inta dheeriga nolosheeda ka waxay anfacdaa dad badan laakiin haddana dad badan bay dhibtaay oo dhibaato iyo akhlaaqdeeda aan sidii loo baahnaa ahayno dad badan bay dhibaato gaarsiisaa nabi maxamed wuxuu ku yiri saxaabiga u sheegayay waxay samaysay oo cibaadiya sadaqaha waxba uma tarina naarta ay galaysaa ayaa u sheeg saxaabiga waxaad moodaabaa la yidhi inuu u maleeyay nabigu inuuna fahmin qofka laga warramayo waxaa loo sheego saxaabiga ku rasuulka ilaahayow gabadhan tilmaamaya waa heblaaye hebel markaasaa wuxuu yidhi u bishaaree naarta u sheego waxaad ugu bishaaraysaa naarta inay galayso idan khayr shaqo ku lahayn tu kale lagaga sheekeeyay majliskii cibaadadeedu inta faraa'ida bay ku kooban tahay oo intaasay ka adag tahay laakiin cibaadadeedu ma fara badno sawaama qawaama kuma sifaysna maal dheeraad ay dadka siisana male laakiin dadku carabkeeda iyo gacanteeda afkeeda iyo adinkeeda waa laga nabad galaa waxa uu nabi maxamed jannada ay galaysaa ayaa ugu bishaareeyay waxay gabadhaasi ku gaadhay inay jannada gasho oo ay ka fadli badnaato qof soon badan oo ka sadaqa badan oo ka cibaadiya daaca badan waa akhlaaqdeeda wanaagsan weey dadku waxa ugu badan ay jannada ku galaan nabi maxamed wuxuu waa laba shay waa la kacabsi iyo akhlaaq wanaag qofka maxaan ku raahdaa nabi maxamed xadiis kale wuxuu ku yiri ii damaanad qaada ma bayna lixyayhi wa ma bayna rijlayhi awradiisa inuu ilaashanayo afkiisa ilaashanayo ii damaanad qaada waxaanu damaanad qaadaya janna wa damaanatu wafaatu nabigu qaadaya calayhi salatu wasalaam ma umalaynaysaa bishaan naxariista badan inay naxariista ilaahay ku asiibayso adiga oo hor fadhiya filin naaga qaawani ay ka muuqdaan ma umalaynaysaa naxariista ilaahay inay ku iman aday salaadu kaagaga tagtay kubadinaad ciyaarto ma umalaynaysaa naxariista ilaahay inay korkaaga ahaanayso adiga oo maanta oo dhan qaarkeen ay candhuufta u tufayaan inay sooman yihiin laakiin hilbaha dadka muslimiinta aysan iska daynaynin majlisaad dad ku xamanayso islaamku ku jaraxaynaysa adoo fadhiya ma umalaynaysaa in lagu dambi dhaafayo naxariista ilaahay ku asiibayso maya kalla wa alf waad ogtahay inayna taasi dhacaynin marna ma umalaynaysaa adiga oo xumaan ku dhex jira adiga oo xiqdi qaba adiga oo xasad qalbigaaga ka buuxo inaad naxariista ka faa'iideysan karto waa maya waxaan u baahannahay inaan ilaahay u tooba keenno
waxaan u baahannahay inaan ilaahay u laabanno waxaan u baahannahay bishaasi inay timaado inagoo iscafinay waxaan maanta u baahannahay inaan iscafino halka waxaan ka codsanayaa shariidkaasi kugu soo gaadho ama aad hadda maqlayso oo daawanayso ama hadhow ku soo gaadhi doono waxaa ammaano kugu halka aad taagan tahay oo aan kugula talinaya ilaahay inaad ugu tooba keento xumaantoo dhan inaad ka baxdo ramadaan maalintay timaado malag baa dhawaaqi doona wuxuu odhan doonaa yaa baaqiya alkhayri aqbil qofkii khayrka raadinayayow khayrkii qaabil oo dadajiyo ku degdego badi khayrkaaga si aad uga faa'iidaysato fadliga ilaahay yaa baaqiya shar qofkii sharka dalbayayow iqsir sharka aad dalbaysa iska gaabi marka walaalayaal dhammaanteen waxay noo tala waxa aniga ii tala adiga ku tala maadaama aadan garanaynin xataa kan ina soo qaabilsanay maalmuhu ka harsan inaad gaadhi doonto inaad ku dadaasho ilaahay inaad weydiisato oo tidhaahdo allaahumma balliqna ramadaan ilaahow ramadaanka na gaadhsii ramadaanka ilaahow kuwa ka faa'iidaysta oo aad ugu dambi dhaafto oo kumamka naarta laga xoray inaad ku darto ilaahayow naga dhig inaan qalbiga dadka cafino inaan ciddii ina dhibtay wanaag ugu bedelno inaan cid kastoo kaa hor timaada naseexa iyo wanaag aad u gudbiso wasalaamu calaykum waraxmat ullah